xalka ugu dambeeya ee dhiciska soo noqnoqda. Xalkan waxaa loo sameeyaa hooyada dhiciska uu kusoo noqnoqdo si walba oo loola tacaalana lagu guuleysan waayey in la xaliyo dhiciskeeda. Baaris kadibna lagu ogaado in kafkeedu uu jilco xilli hore inta aan la gaarin xilliga ilmuhu ay bilo dhamaysteen. Marka mawduucan waxaan uga hadlaynaa dhiciskaas soo noqnoqda iyo qaabka loo xaliyo kafkaas jilca loona gaarsiin lahaa ilmuhu inay bilo dhamaystaan oo bilahoodii ay ku dhamaystaan minka ayagoo ku jira kafkuna uu u xirmi lahaa. Kafku waa kan u ogolaada ilmaha inay bilo dhamaystaan oo 9 bil ay ku gaaraan minka waana uu xirmaa si aysan uga soo bixin minka oo kafku wuxuu ku yaalaa minka afkiisa. sidoo kale waa kan furma markii ilmuhu bilo dhamaystaan oo hooyadu fool ay qabato isla markaana ogolaada ilmuhu inay maraan. Kafku sidoo kale waa kan markii isu tag u dhacayo ay shahwada bacrimintu ay sii marto si ay ukunta u gaarto oo ay ilmo u bacrimaan. sidoo kale waa kan hooyadu markii xilliga caadada ay gaarto oo ay caado keento ay caadadu soo marto duleel yarna siiya oo duleel yar oo ay caadadu soo marto fura. marka haddii si faahfaahsan aan uga hadalno, kafku waa qayb yar oo sida tubada u samaysan taalana inta u dhaxaysa xubinta taranka dumarka ee vaginaha lagu magacaabo iyo minka waxa ayna ku dhigan tahay minka. waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood. kafka waxaa loo qaybiyaa 2 qayb. qayb banaanka taala oo gacanta takhtarka ay qaban karto marka la eegayo xubinta bukaanka laguna magacaabo ectocervix lehna duleel marka shahwadu gudbayso marto laguna magacaabo external os sidoo kalena markii ilmuhu dhalanayaan ay soo maraan. iyo qaybta labaad oo gudaha minka ku jirta laguna magacaabo endocervix. kafku waxa uu soo daayaa xab ama qoyaan kaas oo mar waliba isbedela caadada kadib si uu uga hortago ama uu ugu fududeeyo gabadha uur qaadista. kafku waa uu balaartaa oo isfuraa haddii ay hooyadu foolanayso. sidaa oo kale duleel yar ayuu sameeyaa marka hooyadu dhiigga caadada ay ku guda jirto si ay uga soo daadato. marka hooyadu uur qaado, kafku waa uu xirmaa si aysan ilmaha abuurmay u soo daadan oo waxa uu sahlaa inay minka ku koraan ilmaha. laakiin mararka qaar waxaa dhacda in kafku awoodii uu ku xiri lahaa duleelka lumiyo jug ama xanuuno ku dhacay aawadeed. sidaana hooyadu mar waliba ku dhiciso oo laga quusto inay si caadi ah u dhasho oo ay u bilo dhamaysato. si markaa kafka loo xiro oo dhicinta loo baajiyo waxaa la adeegsadaa habkan toliinka kafka laguna magacaabo cervical cerclage oo si fudud loogu guuleysto marka ilmuhu dhalanayaanna dib looga furo si duleelkii loo helo oo ay ilmuhu u dhashaan. halkan marka waa kan ugu dambeeya ee lagu xaliyo dhiciska joogtada ah ee hooyadu mar walba uu kafkeedu furmo ilmuhuna ay soo daataan oo mar waliba ay hooyadu dhiciso kuna soo noqnoqdo hal kalena loo waayo. marka sidaad arkaysaan kafku waa ka qayb sare oo gudaha ku jirta iyo qayb banaanka soo jirta ayuu leeyahay. duleelkan yar ee noo muuqda waa kan mar walba ilmuhu ay ka dhalanayaan ama markii ilmuhu dhashaan xirmaya ama markii isu tag u dhacayo xubinta ay ka gudubto shahwada. duntan ayaa lagu xirayaa kadib marka ay hooyadu fool ay gaarto oo ilmuhu si fiican u koraan oo ay bilo dhamaystaan. computerka oo ku jirtana lagu ogaado inay bilo dhamaysatay foolna ay qabato dib ayaa looga furayaa kadibna hooyadu si caadi ah ayay u dhalaysaa waana lagu guuleystaa badanaa.